الله يا الواد قرح سنة يكوجو أجنولالا إن ده هيجا يا كاجا ديجا أوبح لسيد دورو يا أضرب دحات كي النفط يدوني ده كو آية يا أضو ضرورو إليس كاجا ديجا روح ده قرقر أما قال لي ده دحات كايس لما مركز نبدأ ديجا هاي محكمة دي كحكم كنت حكم هذا قوديل maxkamadda ayaa gorgor kaasi ku heshay dambi weyn oo ah inuu nolosha ku cunay malay da'diisu yartahay kadib markii uu ka soo afduubtay malaygaasi badweynta Hindiya in daruur curatoo dushayda heshay dugsiye deeqday on dalbaday marwada nafta doorteen ku dagay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالي وايد سلام دمتين سوت الانتهين قاعدة قروا قرشة سرسو أديات ما أنت أنا لفردي أمرك يقول رسام لا قرشة سرسو قسم مغل عمرك كبار يا كسم مقطع وكان توريني مثلي أديات بريها هرتول جوا هالكيكش يعني فشلنا ما يا ذاتك بريها نو حلا هرت قرشة عاوي وين كيرتوا بالوين تو قال مشوا قال ميلو قال على قصب بحيد garashadii way soo socotay maxaan ku raadayay mar baan ka yaabay inay garashadii sareysay baan dhahay garashadii wareertay inay iga noqoto wax fara badan waan la soo buuxaynay waan ka cid daarnaynaa dhammaan daawadayaasha walaalaha baan dhihi anigu daawadayaasha aan dhihi maayo taageerayaasha aan dhihi maayo walaalaha baan dhihi walaalaha ku xiran channelka dhammaan waan ka raali gelinayaa waan soo laabtay insha Allah taala horeyna waan soconaynaa عادي مركن وحاول قلبك واحد وان سوق هذا طبعا ها markii hore bilow buu ahaa moogtahay barnaamijka tijaabo markii hore ahaa bal inuu waxaan soconayo marka ma sha Allah walaalahayga ugu xidhan waxay walaalaha nagu xidhan waxay i dareensiiyeen inaan socon karo malaha markan waxa keentay la sugo dabcan ha inaan socon karo walaalaha i dareensiiyeen saas daraad mid kale aan ku weydiinayo waxay tahay mar badan adigu wax tirinayo khabiyaaladii magaceed maxallaha dagaaladii adigu wax ka sheegay badan waa jacayl angal jacaylka jacayl دينك جعل كل واحد مترس والله جعلك وان اسكو دالي هو كسد هالشيء والله انت جعلك واحد كترنتيسا وان افكا كما قاده جعلك مركادو حلقه جعل حالي لو احنا كده مو عصور جعلك واحد بدل ما كاين حتى السوشيال ميديا waxaan ka wadaa YouTube ku jiraan heesa jacayla oo simahad ruuxi weydiyada jacayl maxaa ka tiri heesta qadarkay uu qaaday marwada naftu uma dhihi lahaa heesta aad sababtoo ah heestaas ay ku dhantay wax walba jacayl ka dhihi lahaa وهستا عاد مريهدا كمين ضرور عرتو دوشيدا هشاي دugsiye deeqday on dalbaday marwada nafta doorteen ku dagay dareen naxariis dushayda dhigay markuu dulmiye gaftar niga dhaco dulqad badan deynta iyo cafido difaaca sharafteeda dadaal u galay erayadaas oo aan hadda si isugu xidhnaan u dhihin baa kamid ah heestaas maanta laakiin ka duwan si ka duwan ha wax cusub heesta jacayl way bartay dadka gabay jacayl may bartay gabay jacayl ha حرو أنا مركي قبل السكال أنا أعرف إن أروح حبدي مارك خلاص أقول ترى رحيل هذه عند بعد قبل عندني ولا قبل تجعلي هاو ترى رحيل هذه وحنا لي الله يا الواد قرح سنة يكوجو أجنولالا إن ده هيجا يا كاجا ديجا أوبح لسيد دورو يا أضرب دحات كي النفط يدوني ده كو آية يا أضو ضرورو إليس كاجا ديجا روح ده الله يا الواد قرح سنة يكوجو أجنولالا إن ده هيجا يا كاجا ديجا أوبح لسيد دورو يا أضرب دحات كي النفط يدوني ده كو آية يا أضو ضرورو إليس كاجا ديجا روح ده يا بيرك كو أمن ده أدوك داويسو يا أرواح ضمانك يا قلبك كو أمانيست الله مو كفي عنو جعل لك هاجرن انت تدل بس وقت ها هذه ودير او ودير او maxaan ku dhahay gabdhuhu malaariyoodan jaanis waay gabdhuhu malaariyo jacayl waxa la kala garan waayo abwaane dhanka jacaylka dan ka soo noqoro dhanka siyaasadda waa wax badan siyaasadda falanqayn jirtay oo dhanka siyaasadda halay lagu noogu taabo miyo horta suugaanta siyaasadda meel baan anigu aad xagga siyaasadda aan uga hadlay meeshaasna waxay ahayd halganka gobonimo doonay gobolka Soomaaliya galbeed ka socday waxa la yiraahdaa taas waxay ahayd bulsho gumaysi haysto oo la kiciyo loo baahan yahay bay ahayd siyaasadna dhinac bay ka ahayd hadda siyaasadda laakiin Soomaaliya oo kale horta siyaasadda Soomaaliya waa hore ma wax ka kolkii iyadoo maamul goboleedyada ayna imanin oo jiraan ilaa 3 maamul goboleed mise 2 maamul goboleed baa jiray federaalka waxa la yiraahdaa dawladda dhaxayna qaadan laakiin maamul goboleedyadaas isku dadka deegaanadaas ay u sameysteen si ay uga badbaadaan burburkii marka sax yaa waxaan dareemay xilliyada marka dawladda dhaxana loo ololeynayay in federaal laga dhigay so
dalka wax qas badan baa ka jiray maamul goboleedyada dawladan is ogoleyn ururo siyaasadeed oo maxaan ku dhahay xagjir ururo xagjir oo maxaan ku dhahay dagaalyahano oo dagaalamay maxaan ku dhahay burcad badeed qabyaalad isbaaro hogaamiye kooxeed dhibaato dhan baa dalka taale marka waxa la yiraahdaa federaalkana aan waaga ma jeclayn hadda xataa aad ma jeclayn marka maana jeclaysanaynin sababtoo waxaan arkay ummadda inay isku mid tahay wax federaal leedahay inuu baahneen federaal dad kala qowmiyadaha inta badan noqdo wax ku qaybsada markaas waxaan idhi Soomaaliya waxaan ka soo qaaday hal ruux naftii waxaan idhi aadamaha jirkiisii isku tiirsanaan jiray eed baa dhex taalo midba geesti inalaan eed baa dhex taalo midba geesti inalaan midigtii waa Stateland waa gacmihii midigtii waa Stateland gurti aayir bidixland ubucdiya kaliyuhuland indhihiya sankiiland ilkihiya dhaguhuland maxaan ku dhahay afka iyo sankiiland inta soo masiiba waxa soo abaabulay iyo qabiiland aafiya colaadland urur iyo wadaadland maraakiib afduubland ashahaado la dirirland isbaariya qaroofland iyo qaar kale oo badan wadagu ilmilaan magacan marka waxaan arkay in waxaan loo baahnayn oo ay dhibaatooyinkaas macnaha kala qaybsanaantii bulshadu inay waxaan maamul goboleedyada la sheegay inay dib u dhalaysiyo waxaan maxaan ku dhahay marka aan sharciga ahayn kadib dib laga sharciyeeyay federaalkiiba ay xukuumadii waa kay qaadatay ilaahay nagu toosiyaan leenahay markaas dhibaatada barkeese dhibaatada markaa u arkay hadda laakiin insha Allah ta'ala ilaahay bal khayr ka dhigaa hadii insha Allah khayr ka noqon doonta had maxaa kala leedahay marka taas waa ma waagaasay hadda laga rabaa hadda miyaan dhaliilaa hadii hadda barti way bataagan tahay ma hadda waxaan ka sugaynaa ma taqaanaa hadda alxamdulillah dawlad baan leenahay maxaan ku dhahay horumar bay sameynaysaa federaal baa iska ahaata aan loo baahnayn laakiin way socotaa hore ho socotaan leenahay hadda qari la ka dhigaa aad iyo aad maalin dhaweytana waxaan sameeyay koronto ma taqaanaa Cabdiqaadir koronto aad iyo aad wariyahena weyn yaan qaabka uu hadlay iyo wariyanimadiisaan ka helay si uu hadlay warka u daadihinay warkiisana aad u dhageystaan marka waxaan iska daawanayay marka intaan markaan warkiisa dhageystay yaa waxaan daawanayay nasna World Animal channel xayawaanka yaan daawanayay marka waxaan arkay marka u horeysay waxaan arkay gorgor intuu badda kala soo baxay malay oo uu kala fuulay geed ilmihiisa ay saaraayeen oo fuulay ilmihiisa u geystay wuu nool yahay gorgorkii oo cunid iyo googoyn ku bilaabay uu gooyaa afku u galiyaa malaygu naf adaga ma dhimanayo sayntu wali saaleeyay madaxiisa waa dhamaaday kala barqaar horii waa tagay eber la yidhi inta joogto kala dhaqaaqays malaygu soo kii dhiman jiray markii biyaha laga soo saaro markaas waxaan isiri dhacdadii baa xanuujisay horta waxaan isiri haday adlaal wariye ahaan lahay maxaad ka dhihi lahayd meesha waxa ka socda oo sida warkii camal u tabin leeyahay adlaal Cabdiqaadir muxuu dhihi lahaa baan isiri Cabdiqaadir waxa ay soo baxday inuu dhihi lahaa kusoo dhawaada warka madaxdiisa gorgor ama galay da'da dhexdhexaadka isla markaasina dhadiga ayay maxkamadda ku xukuntay xukun adag oo dil ah maxkamadda ayaa gorgorkaasi ku heshay dambi weyn oo ah inuu nolosha ku cunay malay da'diisu yar tahay kadib markii uu ka soo afduubtay malaygaasi badweynta Hindiya malaygaasi ayaa la xaqiijiyay in la cunayay isagoo nool ilaa jirkiisa qaybihii ugu dambeeyay maxkamadda darajada koowaad ee duurjoogta ayaana xukunkaasi riday raxan loogisi ama loo dibadeeda ayaa la sheegayaa inay bartamaha hawlka si fool xun ugu dileen laba libaax oo barimageeda ah dhibanayaasha libaaxyada ah oo ay da'doodu aad u weyneed ayaana la kulmay weerarkaasi waxshinimada taliska booliska duurjoogta oo TV-ga alxayawaan la hadlay ayaa sheegay inay wadaan baaritaano adag oo sharciga lagu horkeenayo cid kasta oo ku lug lahayd falkaasi balse ilaa iyo hadda lama soo qabanin hal sac oo gacan ku dhiiglaa yaxaas loo maleynayay inuu yahay yaxaaska dunida ugu xajmiga weyn ayaa la soo xidhay kadib markii uu diiday yaxaaskaasi in la cabiro yaxaaskaasi ayaa ku andacooday inuusan doonaynin in la cabiro sababtoo ah haddii uu noqdo yaxaaska dunida ugu xajmiga weyn wuxuu noqon doonaa mid loo soo dalxiis tago taasoo isagu uusan marnaba raalli ka noqonaynin maxkamadda ayaase laashay cabashadaasi dib ayaana loo dhigay xukunkiisa shabeel xagtir ayaa lagu soo warmayaa inuu weerar bahalnimo ah ku qaaday goob lagu hayo haramacadyada soo galootiga ah kuwaasi oo dalbanaya dhalashada shabeelnimada halkaasoo uu ku dilay ilaa iyo 7 haramacad kuna dhaawacay 10 kale ka hor intuusan isaguna isdilin shabeelkan ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa xisbiga midigta fog ee shabeelnimadu madax martay isla markaasna ku caan baxay soo galooti nacaybka shirkad soo saarta kabaha ayaxa ayaa sheegtay inay la kulantay dhac baahsan kadib markii la jabsaday akoonadeedii ay ku lahayd bangiyada kala duwan ee waaweyn dhacdadaasi ayaana looga shakisan yahay inay geysteen daanyeeraha karisa oo dhacdadaasi ayaana la sheegayaa
dhacdadaasi ayaana looga shakisan yahay daanyeeraha karis ah oo loo malaynayo inay ku sugan yihiin geedaha korkooda. faahfaahin intaasi dheer lama hayo, warkiina waa naga intaa. marka la akhrinayo warku horantis marka madaxdiisa wala soo koobay inta lagu tuuraa soo sama soo iska bareetay wariinimada miyuu ugu faar horta Cabdi Qaadir Koronto hadda kadib soo wariyaha dadka asxaabteena barnaamijkeena halkaas ayuu ku eegay hal laba maxaan ku macsalaameynaa asxaab daawadayaasha waxaan leeyahay walaalayaal wada garab istaagtay hadda nasiib garab taagnaada maxaa subscribe-ta iyo wixii kale muhiim ah iloobina waa shidaalka channel ku dhaqaaqayo taabta idinka waxba idin ma yeelayso annagana wax tarbeeyo channelka waxay u taraysaa hore u socdaan leenahay annagana inta in ka badan aad baan idin salaamayaa walaalayaal